جورك وحال يروح توا عقد أما هو كونتراكت وهشيس لما نروح وذا قلايا ولا واحد هو كونتراكت يا سيادة يا عقد وسيادة هشيس سيادة كجر ديارات كجرو لما قف مركز هشيس انت صايش قنيصة انت صورة وين انت ووحلة كلها سامع كان سيادة كجرت سيادة محيطة سيادة كجرت وحوي السيد إلا إسحنبار تكافل إنه حنبار هادو أضاقو بوسكيسي كسو بحي وايا أما سيدي لقربي وأهان وايا إنه هو يدو حنبارتو هو يدو ضعفي هادو كسو موقع إنه أبوه أستره قف كب إنه أستره سومالي واحد أنا قوري لبقف كما هادو كودا تاقنين لبقف كودا تاقنين قف كو تاقنين حتى معماها وإساقا ويد عمانا سومان لبنا نروحو سيمي إلهي قفنا جانب قوة بوسينا يقفنا ضعفي باكو جرا إن ليس أستره ولا كامل يلا ولا دمايستره إن ليس دمايستره دونك اسموت معها وحوضا محي هاتاي أوكي أنا معهم إلهينا أضامها ويسكو قيبيي لما كستو اسكو في عنا بيجل اسكو عادية أنت كل حاجة عادية مركا حكمة إلهي بقى كجرت ولا اسكو قيبيي حكمة إلهي بقى أو اسمه اسكو حرمتها عادي إلا اسجيدو مركا عقد وسيادة مركا لنا هي وعقد أي سيادة كجرتو إسحنبار كاسا كجرة إس أشتر كاسا كجرة تكافل كاسا كجرة محي هاتاي وحويه نوع بشركي نوركوا وحو ناقصا مقاصد الشريعة مقصد كأن الشريعة إلهي شريعة إلهي أدم قف بني آدم يكون ريغانيس قفك وحلا إلالنا يا نفتيسي وحلا إلالنا يا نفتيسي وإلا ديلو إنو ضيعمو إنو سانكو دعا ولا إلالي عقليسي إنو دور صومو مخاطراتكي وحاس وحلا إلالنا يا ولا إلالنا يا محي إلالي صايا مقاصد الشريعة ونفتا وحي إلالنا يسوى عقلها وحي إلالنا يسوى حوية مالك وحي إلالنا يسوى عردك وفق عردكيسا شرفتيسا وحي إلالنا يسوى نسلك وحوية نسلك ترنك إنه معنا وحي رسولك صلى الله عليه وسلم هواني إذا أفركوا قرصدا مع الدين تيدا مالك كذا محي تاي قروح هذا إياه نصب كذا marka nasabku qabiil iyo landheero ma aha si xun yaan loo turjumin waa in hebel lagu dhihi kara qof aabba iyo meher xalaal ku dhashay abtiris leh يا نكاح حلال كل شيء هبل waa in lagu dhihi rabna nasliga marka inagu manhin xayawaan manhin waqti ashwaa'i manhin marka waxa labtiisa diintu ilaahay waxa noo xafiday ilaahay maslaxadeena ilaahay ba ina ka yaqaan inagu ilaahay maslaxadeena kama naqaan shantaas ilaha markasta lagu doorto waxay hayd astaan aad u wanaagsan diinta rasuulku xooga saar sallallahu alayhi wasallam ku dadaaltan diinta leh tarbiyad yadak gacmaha gubad macna dhulka ku dhicin ha baroobeeni ku dadaal laakiin hadii nimcadi kala ku raacdo gabar diin leh hadii qurux yeelato waa siyaad gabar diin leh hadii qoys wanaagsan ka soo jeedana waa hadii waa siyaad laakiin diinta waxay tahay awla kow ah laakiin kuwa kaleeto hadii aad ku doorto diinta ka tagto waxba ka dheefi maysa taa rasuulkeena nagu booriyay sallallahu alayhi wa sallam dumarka in diinta iyo akhlaaqiyadka la wanaagsan maxaa marka inaga masaalixdeena ilaahay ba ina ka yaqaan ilaahay dumar haduu nahay ilaahay waa in ilaaliyay wax walbana maxaa qoyska hada ilaahay caasino oo isiyaan yimaado imtixaan baa ku dhacaya ilaahay saa inoo ilaaliyo ilaahay masaalixda wax badan baa quraanka arkaysa maxay ahaaday horta dumarku waa nisbal mujtamac waa mujtamac barki murabbina waxay nisbka kalena ayada rabaynaysa tarbiyaynaysa mujtamac barkiisa iyada barki kalena iyada tarbiyaynaysa oo rabaynaysa oo gacanta al-umm al-madrasa إذا أعتدت شعبا طيبا عراق هذه ديار قروضه وحي صوصرت شعب النار وماركتي ضمن مية دمير لبي صوصرت مركه هو يدوى برشدي وح صوصاريس حنسو قارني انت اسسو ودني او عن برنامجك سيج على السنه انه تلوينكي وانا ku jirna qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka gabagabadiisa iyadoo farsamo yaqaanku leeyahay waa gabagaba baamaraynayo balse daqiiqado aynu ku darsanaynaa si bulshadu in badan ay inoogu baraarugto oo wax badan ay u faa'iidaan kan baaqa oo aanan maadaama aan fashalkii maxaa u keenay inuu ku jirnay wax yar baan soo koobaya intaan gabagabada gaaray qoys baa ina weydiisan waqti waxa qoysku aad buu balaaray laba u qaybsan qoys dhisan iyo qoys fashilan qoys dhismay iyo qoys fashilmay oo tirkiisu labadooduna mid walba saddex baa ka sii dilaacda qoys dhisan iyo qoys fashilmay qoys fashilmay oo bataatan wada fashilmay wada dumay qoys reer wada fashilmay wal ciyaad billah qoys fashilmay laakiin ka gaaris leh haaf buu fashilka maraya
marka ka gaarista qabashu leeyahay iyo qoys qaabiliya wuxuu leeyahay inuu hadda fashilmo qarku u saaran yahay wali ma fashilmin laakiin qarku u saaran yahay kan kala naftigiisuna waa sida qoys dhisan oo adkaaday oo mustamir ah oo socday mid mustamir oo caqabad uu ku dhex jiro waa fiican yahay waa socdaa laakiin caqabad baa jira iyo mid socdaa laakiin dacfi jiddan wali waa mustamir waa socdaa laakiin dacfi fara badan baa ka jira marka waqtiga noo saamaxeen maalmaha dambe inuu faahfaahin doono waxaan galabta hadlayno macaahid iyo waxa fiicnaan in looga soo baxo marka baaq waxaan jeedinayaa mid waxaan la hadlayaa qoliyaha jaamacadaha iyo tacliinta ku jira laga soo bilaabo wasaaradda waxbarashada qoliyaha jaamacadaha waxaan jeclaan lahaa faculty la dhaho culumul usr in lagu sadaro culumul usr culumta usrooyinka iyo qoysaska ku saabsan خاصة أرضين qoysaska sababta oo asaasiyaadka waay asaasiyaadka way gabdhaha anigu waxaan dhahaa hadda waxaan hadayka ilaa quraan waan ahay laba buug baan qoraa ma sha Allah labada buug aan qoro mid waxaa la dhahaa al-ummu mithaaliya hooyada tusaale ah waa tuma mid kalena waxaa la dhahaa ilaa iyo goorma doonaysa in guriga ku soo noqoto gabdhaha shaqeeya waan ugu talagalay oo xataa adigu ku jirto ilaa iyo goorma ku qorshaysan in guriga ku soo noqoto maxaa weeye macna marka kitaabka faahfaahintiisa dhexdiisa macna waxaan dhahaa gabdhaha waa ina gabadha markii wax barato way jecesheedii miraheedii aragto inay shaqaysato waa jecesha laakiin ilaa iyo goorma istiraatiijiyad kale leedahay haddaad guursato awlaad timaado shaqada ma sii wadi karti shaqadaadu waa cadilmaysaa ilmihii baa kaa maaragtay kaa dayacmaya gurigii baa kaa dayacmaya ama waxaan dhahaa intaydan guursan shaqaysta markaa shaqaysataa lacagta seefgareeya maxay ahaataayey istismaarka sameeya lacagta lagu shaqeeya akoon furta meel ku darsada gabdhahaasaasan kuwaaniya waxaan dhahaa waa inaad gacan qabsi haysataa sababta oo ah maxaa la baryo badan iyo baahi badanba waa laysku nacaa kan dadkaaga baahan baa ku imanaya adiga baahida gabdhuhu quruxda iyo naashinaashka jecel yihiin guryaha in wax ku soo daraan bay jecel yihiin markasta ninkiina xoogaagii biilka ahaa iyo wixii iyo waa rag oo uu gacan adag yahayo maalka xagga ragga lagalama hadlo marka waxaan dhahaa dhaqaale yeesha inta hadda shaqaynaysaan lacagta ha baabi'inina akoon ku dara marka kaa qoladaas jaamacadaha iyo waxbarashada culumul usri aad baa loogu baahan yahay facultigaas in laga u barano usoo qoysaska dib ugu soo waxa galabta hadal iyo laba laga sheegi kara ma aha taasi waa mid qoliyo waxaan u soo jeedinayaa bangiyada waxaan iyo kambaniyada waxaan jeclaan lahaa in ay gabdhaha dumarka shaqeeya in ay sheer u furaan oo ugu naxariistaan in ay maalka intay ka ururiyaan ay sheer u sameeyaan ay ugu shaqeeyaan faa'iidadooda ilaahumay bilo u sameeyaan ilaahumay laba u siiyaan ilaahumay 6 bilo u sameeyaan oo hooyooyinka guriyihii dib loogu celiyo sababta oo ah gabadh waa baytul maqnuun waa ku ilaaliyay quruxdeedii way dhamaanaysaa dabeecadeedii waa dhamaanaysaa dhalmadii xataa iyadoo waqtigeedii gaarin bay joojinaysaa stresskeeda waa too much kuma faraxsana shaqada ay hayso gurigii markay aragto ilmihii oo ka dayacan iyo tacabkeedii oo khasaaray hoos bay ka ooyeysaa waa gubanaysaa marka gabdhaha banaanka laga kaxeeyo suuqa gabdhaha laga kaxeeyo dumarka min fadlikum suuqa laga kaxeeyo dumarka guryaha lagu celiyo dawladda mas'uulka ah hay'adaha khusaysan mas'uulka ah markasta waxa weey qodobka waa soo jeedinaya tala soo jeedin bay ila tahay qolada labaad oo aan la saddexaad oo aan rabo inaan la hadlo ay ugu horeyso wasaaradda haweenku oo dumarka khusaysan shuunteeda dawladda hoose ilaahba in ku dharshay damiir hadaad leedihiin bal suuqa garoowa fiiriye hooyada 10 saac soo kacday oo ariga qasha 2 saac ama 3 saac oo caawili waa faqida hilibku markuu ku baaro haddana waa shiilaysaa way la fadhisaa ilaahba in ku dharshay hooyada damiirkeeda iyo dadnimadeeda intee sii jiri kara mid walba qoys iyo waxaan caruuraha oo aad ku aragtaan saaxada fiiri natiijada suuqa inoo taala caruurteena yarka wada qaasqaaska ah oo timihii raamuhu noqdeen oo sidaan oo mindiyaha sita ilma street children kuma jiro ilma walba guriga u hooyda yaa waalidkii baa mashquulka isagiina waa ka natiijadii ilmaha waxa u sameeyaa oo hooyooyinka talaagada u sameeya hilibku markuu ku baaro galabta iska xireeya say bari u gataa waxa FGM iyo isheeg gender violence iyo waxaan baas oo lacagaha lagu baabi'inayo talaagada u sameeyo hooyooyinka mashruuc u sameeyo talaagada ah hadda waxa la ii sheegayo hooyo dhimatay oo 100 milyan lagu yeeshay caruurtiina ka khasaartay markaas markii geerida gaalkacayna ka dhacday
marka dhimato waxa la 100 milyan baa lagu maalmo ba neef jiid dayn abay soo jeedaa hilibka caaw ku baar barina iska soo jiin saadamana waa soo jiin 100 milyan baa lagu yeeshay cid ka bixisana mala sidii baa lagu aasay awlaadina waxa la ii sheegay awlaad saalixo oo toosan oo ka bixin karta inay samahay marka hooyooyinka suuqa fadhiya masaajidda lacag baa loo ururiya maxay ahaataaye wixii kale waa loo ururiya mas'uul waxa weeye imaam caadil ilaahi jannada dadka hooska ilaahi harsado ka mid yahay dadka mas'uuliyadda haya Kenya inta looyinkaasi wanaagsan la qaato oo hooyooyinka ay helaan garab iyo isbedel wanaagsan hooyada wanaagsan waa ka garata qoysku wax walba u baahan yahay aad baad u mahadsan tahay ustaadad maamo Sacdiye Cabdisamad oo qayb ka ahayd barnaamijka baraarug dhaqankii adka oo sii dhamaanaya nolol kale iyo xayaat kale looga halagalnay xayaatada kale loola wixii casri oo fiican waa la qaadanaya laakiin inaga salbiga mar kasta qaadano ma aha waxa la rabaa dhinaca ijaabiga wanaagsan inaan u socono dhinaca ijaabiga wanaagsan inaan qaadano marka dhaqankiisi aan maadaama hooyo amba gabdha dhashay aan ahay bal aan u matalo waalidka maalin ayaa 10 sano ka hor bay ahayd baa aniga iyo laba gabdhood oo saaxiibo isjecel baanu sidaas oo galabta u fadhino kale aad baan waxa uga hadalnay markaas qof walba waxa la yaa tusaale ku ah yaad ku dayataa oo tusaale ku ah marka anu waxbaan eri gabadhi kale waxay tiri marka gabar ban hadalkeeda hadda ilaa waay waxay tiri aniga hooyaday baa tusaale ii ah ma sha Allah saari ugu wanaagsanaan ay lahayd wuxuu ahaa waxay tiri ciidan ku daydo bay tiri oo aan rabo inaan tusaale ka dhigto ciidda bay tiri aan tusaalaha ka dhigto oo bay tiri masal ii ah soo qofku role model cid uu ku daydo oo isla ruuxa gaar soo maaha waxay tiri role model hooyaday baa ii ah aniga hooyaday anoo reer leh ayay hooyaday way dhalish waxa laga yaabaa sidii ay rabtay iga rabtay si ka hooseysa baan ahaa marka waan garanayaayo waxa la igu dhaliilayna macallinimadaasaan xoogaa kusoo daahayay marka dacaruur haddaad leedahay shaqadii hawshii wuxuunbaa dhexda ka baxaya marka ii tiri igu tiri wuxuu ahaa baraamur hore loo tiriyay marka waa markii dambe bay aad igu sharaxday markii ii sheegtay dambe maxaaba ilaa saacadda inuu ii qoran yahay maxaaba igu kalifay marka waxa weeye taqriiban ilaa 17 sano ka hor waxa la igu yiri maxamed xifdisana uu itaabtay ilaa hadda marka oo ku celceliya marka anigii gabdho badan oo daawanaya Sacdiye waxaan rajeynayaa ustaadin aan ka faa'iido doono barnaamijkaasi anaga laftigayga aan qoran doono ilaahay idamkiisa insha Allah marka waxa weeye marka hooyadu dareenkeeda waxay ku cabiri jirtay maahan habar iyo cay in lagu cabiro waxa la rabaa qofka maskaxdiisa inaa qabsato marka rabtid qofka marka aad shayga maskaxda ka taabato wax sahlan ma aha anaantu waxa laga yaabaa inay ku qadlaafto laakiin shayga maskaxda ka taabanaya meel buu ku xariiqnaa waa dhaqankii horeeday waa gabar hooyadeed dhaliilsan tahay rabtana inay dhaliisha ka kacdo ay kor u kacdo waxaan marka waxay waqtiga marka wacyiga iyo waaqicii waqtiga joogay bay ku cabirtay marka dad badan ba xataa baraamburka sheego hore u fahmi karin marka wax raba inaan sharaxo aan sharaxaada soo hormariyo dadka marka reer baadiya la ahaa dad oo dhixdo Sacdiye magaalada joogtay baadiye waxay uga sheekeen mi magaalo qofka labadaba waa ina barata baadiye wax laga faano ma wax lagu faano weey ambiyada ilaahay ma jiro rasuul ilaahay soo diray ilaa baadiye la soo marsiin jiray training buu ahaa hadda maanta training bay sheegana laakiin walaal training oo adayg ah oo karti qofku uu ka qaado isku kalsooni uu ka qaado inuu wax qabsan karo ka qaado nolol waxay ahayd ajaa'ib ah marka gabadhaasi hooyadeed waxa weeye xoogaa bay dhaliishay marka waaqica marka jooga u sharaxaysa waxa la sameyn jiray gabadha marka waa la soo guursanay cidla la gudajinaya wala guuraya iyo hooyo iyo yaa caawina iyo yaa ilma ay qabtay sheekadaasi ma jirto meel cidla abad degan qaybtaas shaqada leedahay waxa ma jiraan xoolihiina way ku xireysan yihiin reer baadiyo marka way guuraan meel bay ka guurayaan meel kale u guurayaan marka reerku marka ay degaan xoolo gaar ah la siinaya xiriir gooniya baa loo oobaya aqal gooniya baa lagu dhisayaa xoolaha xataa xoolo yar baa lagu siinaya waxa la rabaa xoolo inay bataan gabadha xoolaheeda badin weyso oo nidaamkii lagu badin waayay keeni weyso xataa waa ceeb waa lagu dhaliili xoolo inay bataan baa la rabaa nolol aad u wanaagsan bay ahayd xoolahaas inay bataan baa la rabaa inay baaba'aan lama rabo marka waxay u soo qaaday adigoo cidladaas gabadhaas sharaxadan soo hormarinay adigoo marka meesha jooga reerku waa la guuraya markii la guuro waxa la soconaya safar ilaa 10 saacadood qaadanaya 10 saacadood oo marka qorraxda haday ku laato xoolo ma socon karaan awrtuna rarka ma sidi karto
waxaa la rabaa habeennimo marka in la socdo intay qoraxdu qarsoon tahay baa la rabaa caawa 5 saac 6 saac baa la guuraya beri 6 saac dama la rabaa in la dego marka hooyada cabri waxay u soo qaadatay adigoo waqtiga guuraya oo soconaya waxay u soo qaadatay xilliga waxa laga yaabaa inaad umul tahay nuujinaysa xaamilna inaad too caloosha ku sido kii aad nuujinaysa dhabarka inuu kaa saaran yahay marna naaskaad siinaysaa marna dhabarku kaa saaran yahay marxalad bad ku jirtaa kaa aad nuujinaysa dhabarkiina waad ku xambaarsan tahay oo awrkii ku aamini mayso waa mujug marna naaskii baad siinaysaa xaamilna waa tahay urna waad leedahay xoolihiina kaxays bay kaa rabaan ceeb waxaa ahaa oo kale xilliga la guurayo inay naagtu cunto karsatana ceeb bay ahayd maxaa la cunaya adkaysan waxaa la rabaa inaan waa gaajaysanahay geeri bay la mid ahay waa ina dhexda xirataa waqtiga wax la cunayo waqti mucayana buu ahaa waqti lasla ogyahay baa wax la cunaa dadku xoolo badan lama haysto marka naagta markasta dabka iska shidato cuntada cunta de ceeb weyn bayba ahayd bulshadayba ceebeynaysa waa hal adayg baa la rabaa marka waxay leedahay gaajaa ku haysaa umul baa tahay naaskiina ilmihii baad siinaysaa midna dhabarku kaa saaran yahay urkana waad ku sida xoolihiina waa wadaa safarka intaa la-egna waa la soo galay safarka intaa la-eg markii la soo galayna waa la degay markii la degayna waa daalanahay ma jiro xoolihii adaa lagaa rabaa inaad soo ururiso ninkii arigiibu oodibu oodin sooma xeradiibu soo oodaya xoolihii adaa lagaa rabaa inaad soo ururiso aqalkii dhammaana adaa lagaa rabaa inaad dhisto cashadii adaa lagaa rabaa waxaasoo dhan bay marka tacbiir u saaraysay marka waxay tiri adoo gaajaysan oo guura qaba waana gaajaysan tahay waana la guurayaayo guura waxaa la dhahaa habeen safarka habeenkiiba guura la dhahaa waxay tiri adoo gaajaysan adoo guura qaba adoo sida geela dhalay godolan oo irma waa la nuugaya soma adoo sida geela dhalay godolan oo irma adoo sida awr gurgura gibilan oo waxsida ilmina waa xambaarsan tahay adoo gaajaysan adoo guura qaba adoo sida geela dhalay godolan oo irma adoo sida awr gurgura gibilan oo waxsida awrku wuxuu doonin inaad dabar ku soo xirta markii reer ku dawo awrku waa fakanaya waxaa la rabaa inaad dabarkii la ninkii oodii buu jaraya xeradii buu oodaya marka adaa la rabaa inaad soo dabar intaasi adiga ah tan dambana waxay noqonaysaa waxaa aad gabadhii xiri lahayd baa tahay bay leedahay awrku wuxuu doonin inaad dabar ku soo xirta arigu wuxuu doonin inaad soo dabaalata xooli ilaa meel cusub bay yimaadeen way kala yaacsanayaan macaaw dhan safar baad soo ahayd umul baad ahayd xaamilaad ahayd arigu wuxuu doonin inaad soo dabaalataan aqalku wuxuu doonin inaad soo degsiisataa aqalka adaa dhisaysa oo soo dhisataa guriga dhankaa soo sii aqalka duurka iyo dureemaha dugsi uga dhigtaa aqalkaa dee markii la dhisaya reer baadiyaha yaqaana saygu wuxuu doonin inuu meel dugsoon gala intaa shaqa soo qabatay waad soo safartay malaha saygu wuxuu doonin inuu meel dugsoon gala haddana wuxuu doonin inaad daana ugu dartaa adoo intaasoo rafaada soo maray oo xoolihii oo aqalkii oo aad doontay saygu wuxuu doonin inuu meel dugsoon galaa halkaa waxaad ka garanaysaa qiimaha uu raggu lahaa qiimaha walaaba aniga shaa maanta cunada kari aduu kari dhaqanka reer galbeedka gudhaa reer galbeedkuna daawanaya aad baad maaragtay yaa su-aashaas u qusaysaa oo halka maxaa xurmadii in ninku xurmo leeyahay hadduna wuxuu doonin inaad daana ugu dartaa ninku wuxuu ehelkiisa ka dooni jirayna hawshaasna waa kuu taallaa marka maxay kusoo gabagabaysatay waxba aniga ha ii dudin waxa ku haysata dantaan hooyada halkaasi kusoo waxba aniga ha ii dudin waxa ku haysata dantaan intaasoo hulba ku taa hooyadu waxay ahayd macallin aad u wanaagsan macallimad wanaagsan masha allah hooyadu macallin aad u wanaagsan oo qofka hooyo haystaahi uu garan karo ilaah hooyooyinka hadda allahumma amiin